الله وبركاته. أنا وناكسن سومالوين ميل بقى جوكتان ما أنت 10 وحين قادرين إنها تصالف في عن له أو رول موديل محوي هاي هدام إنك سومالهن آدي أوبا عنهاي أركوين برنا وحوي هاي فإذا كولي هاي محانك قادن كرنا تصالحان رول موديل سيدان كلمة كأرجنو وابا تصالف في عن أما كدايشو رول موديل محوية is a person who inspires us to strive for greatness, someone we admire and inspire to be like the following. وقف ندي رجالية كنا الدذالة سيان قرؤوا كعنو أما هي بدء يالنو وقف وبوجد له أما هامل له تاسو أي تهي أما أوهايسته تيوينك أما قيمها صوصعدة الرول موديل وقف دي الرجالية كون الدذالة سوقف كور سوق هذا أما هيبت ويشو هدين نقونيسو نولشيس هدين نقونيسو شقديس هدين نقوت الدنمديسة وحندي كرنا ليدر حندي كرنا وهويو كليتو حندي كرنا يو كليتو وقف مدحه ولكن مدح ليدر شخصية هجامية له وقف وبوجد مضن شخصية ديسة همنا له أما ربي إنه تذكرنا همي وياله زي ميل uga soo baxaan wuxuuna leeyahay tayooyinkan soo socda ama qofkii raba inuu qofka waxaas noqdo waxyaalahan uu baranaas u yeesho si uu noqdo waana tusaale fiican runtii oo in ku dayasho u baahan wuxuu leeyahay passion waa xamaasad and ability awood to inspire oo dad kale ku dhiirigeliyo passion waa xamaasadaas for their work shaqadooda inuu xamaasad ahaan u dhiirigeliyo for their work infect others wuxuuna qaadsiyaa dad kaleeto inay sidiisoo kale sempre isdhiirigeliyaan isdhiirigelinta maxaa ka dhalanaysa qofkii inuu horumar sameeyo markay group yihiinna horumarkaasoo degdeg ku mira dhala wuxuu leeyahay clear set wuxuu dhigtaa go'aamo cadcad of values oo qiimo ah ama qiimeynta isagoo actigareynaya waana falkii in a ways that support dariiqad caawinaysa in their beliefs waxay aaminsan yihiin and values iyo qiyamkooda يعني الطريق عد مكان ده وحن كبحيا ماشان وحن كسعدا ماشاس وحن فيرنا point A to point B طريقي أنا أوجد ماشان كدقائق مالها نسي مرايا إلا ماشان جارايو مركا جول كيجا وكلير وأوجد ماشان كدقائق ماشان سي مرايو إلا ماشان جارايو مركا وقف سدا وحيس أوها بيسان وحوليه هو كلا تقف كشخصية داس له commitment بلانقات to community بولشدا taasoo focused diiradda saaraysa as opposite kasoo horjeedka of self focused inuu isaga isfiiriyo dhaho aniga wax fiican aan sameeyo oo qofkii isla weynin iyo kibir iyo u galo la qofka isagoo heerkaas gaaro oo isog inuu qof fiican yahay isaga isma fiiriyo dadkii dhan wuxuu xaawilaa sidaan hore soo sheegnay inuu qaadsiyo to infect wixii wanaagiiso kale inuu dadkii dhan qaadsiyo ee kulli wadaagsadaan marka dadkaas wanaagsan bata maxaa dhalanaya inay noqdaan community guuleysta ama noqdaan bulshada hore u marta taafaraad selfishness nafsidnimada and acceptance ogolaansho of others selfness يعني qof isaga noqon qof selfish oo aniga wax walba aniga u fiican aniga la dadka la wadaaga ogolaanshadana dad kale tan ogolaada إن مركان إس أقولانه وحي فضدينيسا إن نسيف عن وذا نولانو. good example وحن كسو قاعدين كرنايا كله family. أبي هوي كبلابنيسا عيال كودا قف الدواء عدمه قف الوقت الدواء الدوية هسيتانا نبضي كودا نوليه. see others
isagoo arkaya kuwa kaleeto needs waxay u baahan yihiin an act kana fal qaadanaya on them iyaga kana fal qaadanaya wuxuu leeyahay qodobka shanaad ability awood to overcome kaga adkaanaysa obstacles caqabadaha leeno qofka mar walba wax sameynayo waxa ka hor imaanaya caqabado oo niyad jabis ugu ridaysa oo dib ku dhigaysa oo wixii soo daahinaysa shows that success taasoo tusaysa inay guushu is possible ay tahay wax la gaari karo despite no matter what despite inkastoo ama wax kastoo dhaca obstacles caqabad walba ka hor timaado guushi waa gaarayna yani qofkii wuxuu picture garaynayaa isagoo guushi gaarinba inuu gaaray guushi waana la gaarayaa yani taas waxay tusaysaa inuu qofkii ahaado qof sembari hami weyn leh marka role model ama tusaalaha waa ku dayasho aad u wanaagsan marka Soomaaliya waxaan u baahanahay inaan isku daysano wanaaga isbarno iskuna caawino community ahaan leena wanaageena ama isku xidhnaanteena waxay keenaysaa wax soo saar badan gruubyada ardayda ah shalay toole 3 gabdhood walow aan gruubyada dhan ma sha Allah waxa wada horgal u wada ah ama wada sameeyay ama is wada xil qaaday ma sha Allah kulligoodna khayr Allah wada siiyay ardayda dhamaantood gabdho kaasoo aan waa 10 gabdhood shalay waxaan soo xusay 3 maanta waxaan xusayaa 4 kaleeto aadeen u maadsan yihiin waana filayaa gabdho kaleeto oo badan iyo wiilalba inay ku daysadaan tusaalahaas fiican oo ay asxaabtooda ardayda arday jaamacadiin arday iskool yihiin dariskooda ay kulli ka wada faa'iideystaan wax aan waxbarashada iska ka wada faa'iideysano wixii fiican isaga dayano gabadha afraad waa Sahra oo samaysay Garissa group waa maadsantahay Sahra guuli barwaaqan ku rajeynaya barakallahu fiik 5 waa Fatma be yourself waa groupkaas be yourself adigana aad Faadimo u mahadsantahay xabiibti gabadha lixaad waa Roda Somali 5 adigana Roda u mahadsantahay waxaan ku rajeynayaa waxbarashadaada adigii gabdhaha asxaabtaada oo dhan guul iyo horumar iyo qof sember wax fiican gudbisa ardayda asxaabtaada oo dhan gabdhii wiil waxay yihiinba saasaan kugu ogahay maraba badi ardayda kugu hareeraysan gabdhii wiilalba waxay yihiin wanaagana wadaaga 7 waa Caasho waa success group adigana Caasho u mahadsantahay saas maraba dhiirigeli dariskaaga dadka kugu hareersan walaalahaaga saaxiibadaada khayr badan aan idin rajeynayaa shal waxaan irbuxbo Salma iyo Kawthar maanta waa Zahra Fatma Roda iyo Caasha 3 gabdhood u dambaysa noo dhiman xabiibaati kulligiin u mahadsantihiin saasaan ku ogaa gabdhaha Soomaaliyeed inay weligood ahaayeen gabdho shakhsiyad wada fiican leh oo khayrka bilaaba mar walba intiina kale tan ku dayada gabdhahaas waan huba inaa kulligiin wada sifadaas wada leedihiin khayra idin rajeynaya meel boo joogtaan gudihii banaanka Allah iscaawiyo waxbarasho haday noqoto wanaag haday noqoto khayr badan idin rajeynaa dhamaantiin guuleysta ka soo dhantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh